Somaliland hanola. Somaliland hanola. Very good. And waxaan doonayaa hadalkayga inaan ku bilaabo aniga oo arkaya dadkan faraha badan leh quruxda badan leh sharafka badan leh halkan iskugu yimid oo ay ku jiraan dadkii dhaqanka inoo hayay miisaanka weeyaan ay ugu soo horeeyaan dhalinyarada waxbaratay iyo dadka aqoon-yahanka ah ee halkan fadhiya professionalska kale ee halkan jooga dadka baayac mushtariga gacanta ku haya iyaguna halkan fadhiya dhalinyarada howlahan ka dambaysa ee diidka badani ka galay intaba waxaan doonayaa iyo haweenka Somaliland inaan halkan ka salaamo oo aan uga mahadnaqo aniga sharaf weyn ayay ii tahay inaad halkan isugu timaadaan waxaan gudi karo amba aan cabiri kara maanta ma aha xiisaha igu jira laakiin waxay markhaati ka tahay idinkuna inaad ii ogoshihiin aniguna inaan ii ogolahay maanta dambe waxaan jeclaan lahaa maanta halkan mar haddii aan ahay dadka aan ka soo tafiirmay qaar ka mid yihiin ay awdal ee degmadeeda ka yimaadeen waxaan jeclaan lahaa ogaaskii cabdirashiid inuu maanta halkan inala joogo waa nasiib darro uu iman kari waayey waxaa ku dhacday waxoogaa mashaqaha faamiliga Ottawa Canada marka halkaasuu si degdega xoogaa agsida loo ka dhacday inuu tago marka ogaaska halkan cabdirashiid salaan xoog leh ayaan halkan uga diray gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo imikana ah rasmiyan tartanka xisbiga kulmiye qofka uga qayb galaya doorashooyinka soo socda ee madaxtinimada Somaliland walaalkay Muuse Bixi Cabdina waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo oo aan uga mahadnaqo hadalka uu jeediyey iyo joogida halkan uu joogo xisbiga kulmiye madaxdiisa kale ee halkan fadhida ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ku saddexaad dadka halkan fadhiya wasaaradda maxaan ku rahay ministerada halkan fadhiya oo qaarkood aanu si gooni ah u saaxiibnahay oo walaalkay Cadaani uu ka mid yahay Mareykan ay wada joogi jirnay halkana aniga dadka aad iigu soo dhaweeyay ka mid ah ilaa markii aan soo noqdo ilaa ceerigaabo igu sii galbiyay waxaan jecelahay inaan halkan wasaaradda uga mahadnaqo madaxweynihii waddanka oo halkan aanina laga joogin inaan halkan salaan isagana uga diro iyo mahadnaq iyo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka walaalkay Cabdiraxmaan Cabdilaahi isagana oo aanu aad iyo aad u sheekaysanay si wanaagsan ay soo dhaweeyay dadka taladeedana wax weyn ku lahaa isagana halkan inaan uga mahadnaqo aniga maalintani waa maalin aanan iloobi karin daalkulka waan joogaa maalmo badan oo xusuusta ayaa i soo maray farax badan leh qaar muruga leh ayaa i soo maray laakiin maanta waxay ka la mid tahay agtaala maalin aad iyo aad iigu weyn oo bishii Juun 2013 iyaduna ku jirta oo markii waddanka aan ku soo noqday waddanka ku wareegay magaalada Boorama khayriyadeeda 70,000 iyo in ka badan ay isku soo bixeen oo waligay iloobi karin maanta ayay kala marka waa maalin aad iyo aad ugu jirta ruuxayga iyo dhiigayga inta aan noolahay in sharafka caynkana aniga oo weli kasban in la siiyo aad iyo aad bantana doonaya inaan u xariiqo waxa kale oo aan doonayaa maanta halkan inaan iyadana si weyn u cadeeyo inaan goostay tala ah in aan wax ku soo biiriyo taagtaydu ha iska yaraatee waxaan ku soo biiriyo ummadan Somaliland horow socodkeega iyo dhismaheega waqtiga soo socda aniga oo galaya oo isticmaalaya organization-ka iyo dhismaha xisbiga kulmiye in badan ayaan dad badan la sheekaystay
qurbaha iyo dibadda labadaba oon tala weydiiyey ilaa in ku dhow 2 sannadood ugu yaraan axsaabta kale labada xisbiga kale waddanka dadka madaxda u ah oo dad sharaf leh oo aan aad iyo aad u qadariyo si badan oo gundheer ayaanu waqtiyo badan isku qaadanay inaanu isla falaqayno mustaqbalku wuxuu eegyahay sidaan u wada shaqayn karno iyo hawlahaasaan u wada qabsan karno iyagana halkan maanta labada xisbiga kale iyo madaxdooda inaan uga mahadnaqo ayaan doonaya laakiin waxaan markaa caawa iyo maanta doonayaa inaan caddeeyo inaan mabsuud ka ahay iyadoo oo si badan la iila tiriyo oon dad badan iswaraystanay in maanta aan soo gaadhay tala ah anigoo aad uga mabsuuda kalsooni weynna ku qaba in aan ka qayb galo horumarka iyo horu socodka waddanka Somaliland aniga oo xubin ka ah xisbiga kulmiye hadday intaanan u gelin oo arrimahan public policy-ga ku saabsan intaanan u gelin waxaan doonayaa halkan inaan dhawaaq uga diro annagu reer Somaliland dad baanu si gooni iskugu xidhannahay dadkaasuna waxa weeye dhalinyarada jaamacadaha ku jira ee iskuullada ku jira oo ilaa Eregaabo ilaa magaalada Boorama iyo inta u dhaxaysa daadsan oo si gooni iskugu xidhannahay oo ballamo badan inaga dhaxeeyaan inaan fariin gooni halkan maanta uga diro iyo inta kale ina dhageysanaysa ummadii Somaliland iyo adduunyada fariintaasna waxa weeye inaan soo galida xisbiga kulmiye anigoo aad iyo aad ugu kalsoon oo ku faraxsan waxa weeye fariinta aan diraya dhalinyarada aan u diraya idinkana aan idin la wadaagaya soo galida xisbiga kulmiye iyo la shaqaynta xisbiga iyo madaxda la shaqaynteedu macnaheedu ma aha ku celiyo macnaheedu ma aha aniga oo meel iska dhigaya oo ka tagaya waxaan isku aqaano dadkuna ay ugu yaqaanaan sida intay tamartaydu tahay oo ah mabaadiida anigu aan ku dhaqmo inaanan ka tagayn oo ay ugu horeyso cadaalad in lagu wada dhaqmo oo ay ku xigto karti in hawsha lagu qabto oo ay ku saddexayso aniga oo maskaxdayda furan independent thinking ayaa ingiriiska la yidhaahdo maskaxdayda furan aan marnaba maxaan ku dhahay ka tegay taasuna iyo geesinimadeed ku xidhan in maskaxdaada had iyo jeer furan tahay oo sidaad u fikiraysa aad u hadasho oo muuse haddii beri madaxweyne noqdo annagoo rajeynayno madaxweyne noqdo runtii aan ku hadli jiray unba isagana hortaalla ana waxaan doonayaa inaan halkaa kaga hadlo waayo wada lahaashaha waddanka wada lahaashaha xisbiga kulmiye wada lahaashaha dawladda xisbiga kulmiye oo dhisi doono markuu guulaysto hadduu guulaysto maaha markuu guulaysto xisbiga kulmiye waxaasoo dhan wada lahaashaha waddanka wada lahaashaha xisbiga wada lahaashaha dawladdu waxa gunteedu waxa weeye karti iyo cadaalad haddaanay jirin wax alla wax qabsoomi karaya ma jiro marka taasina waxaan doonayaa inaan aad iyo aad u xaqiiqo aan u soo dhaqaaqo gunta hadalkayga waxaan doonayaa inaan dhowr kalmadood ka idhaaho Somaliland xisbiga kulmiye iyo waqtiga inagu soo socda ilaa waqti soo socda ayaa loo diyaar garoobaya Soomaa intaasaan doonayaa inaan waxoogaa ka taabto waxa igu horeysa aniga hadaad deesaa u hadlayso inaad adigoo oo ay fara badan tahay inaad yara taabato kaydka waddanka u yaala waxa dawladda maanta taagan ee Axmed madaxda uu ka yahay Maxamuud iyo Cabdiraxmaan ay madaxda ka yihiin iyo dadkii la shaqeynayay waxay soo qabteen ee kayda ee capital ee bank yaala in la xuso waa important ilaa halka laga dhaqaaqayo waa halka weyn waxa kamida maxaan ku raacay waddanku way jiraan meelo daldalaac iyo xagasho ay ka taagantahay wali xasiloonay laakiin Somaliland inteeda ballaaran waxay haysataa degnaansho siyaasadeed iyo nabadgelyo waa guusha halkay ka bilaabanto la'aanta wax socon karaya ma jirto
taasi waa arrin baanka inoo taal talabaad waxa weeye dhaqdhaqaaq xagga maxaan ku dhaqaale dhiska ah oo iyaduna imika muddo socotay oo dee wadada isku xidha kala bay iyo dira ay marxati ka tahay wadada burca laga dhaqaajiyay ilaa ceerigaaba ku socoto oo dee adduunyo dhanade ya ay marxati ka tahay wadooyinka magaalada Boorama gudaheega hadii 5 sanadood amba 6 sanadood amba 10 sanadood horteeda aad eegto dees way ka duwan tahay maanta magaalada Boorama inay wadooyin la mari karo ay leedahay Gabriel waa sidaas Hargeysa waa sidaas meelo badan oo caynkaas waxa kamid ah baanka arrimaha yaala airportkii Hargeysa oo ku soo degi kari waayay anigu 2013 waa laga shaqeynayay marka barbareyn lagu soo dego maantana diyaaradihii waaweynaa ee adduunyadu ay Hargeysa soo fadhiisanayaan waxa kamid tahay waxa la qabtay ee baanka inoo yaala furdada magaalada Berbera oo aad furdada wadanka ugu weyn oo imika dib loo habeyn doono la ballaadhin doono gunteeda la sii adkeyn doono maraakiibta waaweyn ay soo degi doonaan oo wadooyin waaweyn ay ka soo baxaan oo wadanka gala ilaa Ethiopia waxa weeye ufada soo socota iyo darajada soo socota laakiin dad baa xadhigayga dhigay oo dhagaxeega dhigay oo keenay marka waxaan filayaa arrimahaas in ay yihiin waxyaabaha aynu u baahanahay la xuso waxa kale indhahayga ku arkay haddaan qof academic arkay shaqooyin badan oo private small business imika meel walba socdo arkayso hotelkan oo wadanka iyo awdal iyo Boorama ay u baahnaydna wuxuu marxati ka yahay shaqada private ka ee dadku ay dadaalayaan wax qurux badan oo wanaagsan in la sameeyo marka walaalkay hotelkan ay raayigiigu ku waxaan ku raay dhashay shaqadan way qabtaan anigu xalay seexday oo ka soo toosay saaka isagana waxaan ku leeyahay congratulations halka hawsha ka wada waxbarashadii sidaas leeg dad badan baa maanta waad ogtihiin kuma yaal boqolaal ayaa maanta ku jira iskuulada amba dugsiga ku jiraan amba elementary school ilaa jaamacada ku jira waa wax wanaagsan oo inoo soo kordhay waxa jirta talaabooyin bilow ah oo laga qaaday arrimihii siyaasadda dibadda waxaan ahay dadka aad ugu kulul siyaasadda dibadda inaan halkii la doonayay gaarin waan u soo noqon doonaa laakiin dee talaabooyin baa jira muuqda oo la joogsan karo oo laga dhaqaaqi karo kuwaana in la xuso waa lagama maarmaan intaasi iyadoonan dhammayn karin waxay mathal u yihiin waxa la qabsaday maxayna hor yaalla ee xisbigani oo doorashada la tegaya ee dawladda ummadii loo bandhigaya laga dhaadhicinayo deetana guul lagu doonayo way fara badan tahay laakiin anigu dhowr qodob baan doonaya inaan soo hordhigo oo idhaaho ay priority u tahay dadka reer Somaliland xisbigana ay ka mid tahay aniguna aan ku soo beerin hadday jirtaan aan ku sii adkayn in laga dhigo visionka iyo public policy arrimaha qodobada lagu dagaalgalayo doorashadaas way bilaabantay badii campaign-kii uu bilaabay ayaan yeela tahay walaalkay Muuse si wanaagsan buu xariiqay isku duubka iyo wada jirka Somaliland anu waxaan qabaa inay tahay number 1 hawshaasi ma dhamma wada jirka Somaliland ma dhamma horena waana waxa dildilaacyo badan ayaa yaala laakiin waa wax degdeg wax looga qaban karo oo la daweyn karo marka anu waxaan qabaa in aad iyo aad xididada loo sii dheereeyo jirida la sii adkeeyo oo aad loo waraabiyo wada jirka iyo isku haynta ummadda Somaliland gees ilaa gees in la isku hayo taasina waxay ku imanaysaa dhowr qodob oo degdeg wax looga qabto oo hawshoodii si buuxda loo sameeyo muusana arrinta uu taab waxa weeye citizenship waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo dadku inay wadanka wada leeyihiin citizenship in laga horgeeyo reehebel laga horgeeyo reehebel waxa qore baabin kara waxa weeye citizenship qofku inuu yahay citizen wadanka u dhashay xuquuqdana loo simeeyay inta hadii laga adkaado qabiilku hoos ayuu dhacay qabiilka waxa dhaliya marka citizenship aanay jirin amba aw haraadan yahay meel kale oo la hadsada aanay jirin ay halka la galay taasi waa koob talabaad anu waxaan qabaa wadanka isku hayntiisa iyo in aad iyo aad loo adkeeyo wada jirka inay u baahan tahay cadaaladii in dib loo soo nooleeyo cadaalad in dib loo soo nooleeyo
cadaaladana lagu xidho qawaaniinta waddanka oo la adkeeyo oo loo hoggaansamo oo la ismaqlo oo la kala dambeeyo qofka bilayska markuu ku yidhaahay joogso halkaa ma mari kartid inaad joogso aanad odhan wardee naga daadi annagu halkaasaan doonan aynan marne aad joogsato waad garmaysa anu sheekooyin badan baan daan wakhraysanna idiin sheegi lahaa jabaan waxay iga qabsaday habeen baabuur aanay jirin waddo annagoo soconno oo lugaynana waa magaalooyinka waaweyn mid ka mid a oo baabuuradii aanad arkayn nalcasi nagu soo baxana koo lugayno qoladii la socotay Japanese-ka oo anigoo sheekaysanna nalkiina wuu cas yahay aan iska talaaban doonayna waddadii ka talaabo ninkii ila socday dadkii martida aanu ahaan halkii way joogsadeen nalkay sugayaan intuu ka noqonayo cagaar green uu ka noqonayo ana waan iska socdaa waan sheekaynay soo adamaadka baabuur iyo wax noo dhawi ma jiro waa 12 kaabo dib baan u eegay asay qasnaa ay siday markii dambe weydiyo ku ri maxaa waastina bilaysus professor Samad ma aha qaynuunku marka bilayska amba dadka qaynuunka ay ku joogaan inaad ogolaato dadka marka bisasheed citizen tahay waxa weeye adiga ilaahay mooga cid kale aanay ku arkay inaad qaynuunka u hoggaansato ku dhaqmayso adoon lagu arkay taas waa kan misaal markaan waxaan idinta saddexaad karti waan soo noqon doonaa karti Somaliland karti waa inay muftaax noqoto haddii kale ma kala baxayno qof walba uu soo doobin doobintii la kala saari karo ma yatii dhabta ahayd iyo tii kale soo adiga karti waa inay noqoto kartidiina waxay la socotaa institution building xisbigani waxaan anu maxaan ku rahay gebel shalay aan idin xisbigu waa inuu noqdaa xisbi taariikhi ah oo sidii relay race marka la orday caruurta la ordayo qoriga la isku diibayo relay race generation by generation ka kale oo u diibo hadduu xisbi noqdo meel jaran yar laga dhigto kursiga lagu fadhiisto kolka kursiga lagu fadhiisto deetana jaranjaradii la raatiyo xisbi ma aha sadegalmis xisbigu waa inuu noqdaa organization daba oo ka quwad weyn qofka gudoomiyaha waqtiga قدومي كحينين كقوة وين مدحوينها كقوة وين وضياش كجرا كقوة وين وأيو generation كي صار دجنا ولي حزب جوي ليه قوة صوص على ويليه أنت وقت جاي جوكتا كل دول حزب جماله مركا institution جوكتا أم بوزارة قانون هالنقط أم بوزارة عافمات كان institution جوكتا وحاسو ده وحاسو صوت دوبي الصومالي لأن أضيع إنه أتخين إنه وده جيل كذا أنا وحنقول يا سو وحنا دي عاشق أسبوعين من الأحمر ولا ندي بسوق عاشقنا ولا ندي بسوق صدق قلنا ندي بسوق جعلانون ما لاحظوا وين الجعين كهي عاشق كينان يعني جيبات ضال كان كذا أرنت الله بعد هرتا الله كل مية حزب هرتا الله كان من نقطة بنتاني وصل يلتها هاي أجندها اللي قد قال كي وحوي موسى نوطا وهذا قال دسمي أنا كمبدأ أيوة أدرس كل صوت وذني موسى ما نحل ما نوحن ريهرسل كمان ناس نوحي كواحد يوحن كواحد ما ناقصه ومسكح كلامتي ما كان هالك رجوين بكتش دقال دسنا هالك وجوه رئيس وحوي شقة أبوه وتأدوك تندوان ميتكي دليري سمال لأن نقص قريبا ميتكم تودى كمان نعبا لكن وحيين جوغان بيواي شو تكرمش ودنا هدي دليري وصلا وغا يعش دي وحي لو جوغ هدانو جيرين ده خلاص مركا شقة أبور ولا قبل ما شقة أبور المفتاح وحا هو production سيدا وحلوغا صاري ودن production أفر تمالودي وين البرودكشن كلا جسوا صاري ما هب بيزنس كا وحنا أنت لجسوا China لجسوا يبيو دم يتندد كلا يبيو تحسوا تريد أوكي لكن وحاسد قال له مدرس production وحوي بارهي production وين العقية وكسبح باقي وين نقطة من ورشة أي كوت هالله يا اللي أنت كب حدا أنت لقول ميرو قصة على لقول الجيو ترى دويد الله درو خوستا أي كذا قرنت هاي made in Paki Republic of Somaliland production agriculture بارهي حوله ده محن كورا هجيل يلود يعري يحوله animal husbandry إن ما العلم يسال السوق قرسيه أو كتير دارا هذا اللي جليه أو علم الساينس كل السن السوق وحن إذين شيء for example قالوا السويد شانوا دوان شيء كيسا أنا السويد واحد يقول أنا ما ساينتيست بري يهري الصومالي يبتدي بربو قالوا يمين جري واحد كشقين ينو يدوني عانها جيله
intay warshadii u sameeyaan caanaha geela dabeetana yogurt laga dhigo caanaha geelu waa caanaha ugu subag badan male yogurt in laga dhigo itana Yurub la geeyo iyagoo arrimaha khidadeedii dhigtay oo wixii oo dhan dhameeyay ay burburkiyo wixii dhacay sidii bay deetana alaabtoodii ku laabteen oo iska noqdeen marka xoolaha waxa ku jira arrimo badan oo cilmiga science uu soo saari karo oo ilaa imika aad uga shaqeyn halkana production baa ku jira kalluunki 900 iyo dhowr iyo 80 baan maleynaya dhowr iyo 50 way xeebta Soomaaliland ta wax badan ay halka laga sameyn karaa kalluunka iyo small industries iyo mining arrimaha caynkaas production halka aan kaga haro iyo dadkii shaqaaleen labor force waxa ka shaqeeya oo farsamo leh oo generation ka dambeeya oo ka farsamo wanaagsan yahay waxa soo raacay dhaqaale dhiska infrastructure waxa weeye waa xubnihii dhaqaaluhu ku soconay wixii uu ku soconay wadooyinkaas ka mid ah laakiin waxa ugu horeeya infrastructure wadan aan taalahayn oo dhaqaaqana ma jiro energy haddii aanay energy jirin ma dhaqaaqaysid waa inay energy kuna maaha maxaan ku rahay Hargeysa iyo Boorama iyo Burco iyo Laascaanood iyo Ceergaabo magaalooyinka caynkaas maayama waa in magaalooyinka yaryar ee taabiyadaha ee 200 qof ay ku nool yihiin waa inay energy leedahay marka sidaynu energy u helayno waa hawl weyn oo inoo tala la'aanteedna ma soconayso production waxa la yiraahdaa Ingiriisiga rural electrification baadiyihii oo nal yeeshay ma magaaladu baadiyaha ruush waxa lagu dhisay waata Mareykan waxa lagu dhisay waata Japan waxa lagu dhisay waata wadamadan imika dhismaya Ethiopia ka mid tahay hadaad aragto waxa lagu dhisay waa arrimaha caynkaas energy xaafadihi iyo daabiyadihi iyo wadankii la geliyay wadooyinkii furdadihii halka waxaan doonaynaa furdada berbera in la balaariyo sida laga dhigo way wanaagsan tahay oo wadan walba wuxuu leeyahay meel weyn oo furdada ugu weyn Rotterdam oo Yurub oo dhan ugu weyn oo Holland waa in berberisa ay noqoto waa laga maarmaan laakiin waxaan leeyahay waxa bayaan berbera lagu shub soo aad garmaysid loo hayo waa in la dhisaa soo aad garmaysid laas qoray waa in la dhisaa furdadaha yaryarna iyagana waa in xoolo la geliyaa haddii kale waxay noqonaynaa magaalo qura port qura halkaa la iswada daba joogsado waa in la kala furfuraayo aniga ila tahay airport waa sidaas magaalada Ceergaabo waa inay airport yar yeelato waa halka ugu fog marka Hargeysa loo eego airport yar waa magaalo qiimo weyn leh Ceergaabo airport yar oo maxaan ku rahay diyaaradu tagi karto wadada iyo diyaarada marka la isku xigana deebi honeymoon ka loo tagay Ceergaabo waa meel lagu soo raaxaysan dadka arrimaha caynkaas technology iyo internetka in meel walba ay gaadho waa arrimaha infrastructure wadanka ay ka mid tahay ugu dambaysa arrimaha dhaqaalaha waxa weeye dabeecadda environmentka sida loo ilaaliyo waxaynu deganahay adduunyada meelaha ugu khatarsan baynu maanta deganahay haddaad geographiga iyo weather and climate haddaad garanaysaan diyadda waa saaxil baa la yidhaha the great dry lands of the world adduunyada dhulka engiga waaweyn ee ilaa Asia Japan Gobi Desert ilaa halkaasay gashay West Africa halkaasaynu deganahay temperature-kan kolka ayana wuu sii xumaynaya kolka imika in laga sii fikiro environmental protection imika in laga fikiro haddii kale kuleel cusub baa soo imanaya cudurro cusub inaan aqoon baa imanaya dabeecaddu hadday isbedeshana waxa aan soo sheegnoo dhami waxay noqonayaan maxaan ku dhahay wax baaka environmental protection halkaan kaga hadlo tasaddexaad human development horumarka bini'aadamka human development laba miftaax ah waxa kaloo dhami way ku xidhan yihiin laba miftaax ugu horeysa waxa weeye public health caafimaad ma jirto adduunyada meel dadkoodu ay bukaan oo haddana qurux badan oo maxaan ku dhahay adduunyada ay saaciso ma jirto soo adeegay caafimaadkuna waxa ugu horeeya laba amaro biyo nadiifa oo la cabo maanta dadka Soomaaliland ku nool hadday ugu badato 20% ayaa biyo nadiif ah inta kale biyo wasakhaysan bay cabaan biyo wasakhaysan dad cabisana cudur baad cabisaa doon ugeey soo adeegay clean water cudurrada dadkeena hayana 70% haddii biyo nadiif ah cabaan tropical diseases halkaas ay kaaga harayaan cudurrada kolka biyo la cabo nadiif ah in meel walba la geeyo ma aha magaalooyinka waaweyn iyo hoteelada waaweyn oo biyo nadiif ah meel walba iyo nutrition waliba nutrition-ka ay ugu horeyso dumarka iyo carruurtu waxay cunayaan inay cunto wanaagsan dumarka iyo carruurta waa taas
preventive medicine waxa weeye inaan la sugin qofku intuu bukoonayo markuu bukooday dhakhtar hal si loo daweeyo no laga hortago cudurka intaanu iman in laga hortago preventive medicine ayaa af ingiriisiga lagu yiraahdo halkan waxayna la fadhiyeen inaan soo raacnay Dr. Cabdiraxmaan Madar oo dhakhtar weyn ku ah Mareykan magaalada deganahay ayuu u degan yahay laga yaqaano جيمك جامعة وكان ليا دقيست عبد الرحمن ويستاك الله وقت يستاك عبد الرحمن أنا وين تاسك كجاري سجى معلم وين أرلمها كأو سجى ورئيسن صوتان لكن وا important إيوه public personal and public hygiene نظافة قفقة هي نظافة الجريجة هي نظافة السوق سومالي لان واحد أركيسا ميلا بلو بين نظافة عادو اللي دتا إن نظافة public sanitation لغا شقية waa important halkaan kaga hadlo waxa soo raaca horumarka bini aadamka waxa weeye education waa education waxbarashada way education waxbarashaduna waa laba waxbarashada waxa la yiraahdaa ingiriisiga horizontal waxa weeye dadka intii la gaari karo boqolkiiba boqol inay dadku hadlika ay wax qori karaan waxna akhri karaan horizontal oo literacy inuu qofku wax qori karo waxna akhri karo ama Soomaali ku qor ama Carabi ku qor Ingiriisi ku qor it doesn't matter literacy horizontal halka talaabooyin badan baynu qaadnay dad badan ayaa imika wax qori kara waxna akhri kara marka loo qiyaaso halkaynu ahaan jirnay laakiin halka aynu ka jabnay markay noqoto wax qorida iyo iskuulka gelida waa dumarkii weeyii hablaha yaryar waliba hablaha yaryar iyo dumarka guriyaha faqrigu ku badan yahay ka yimid Soomaaliland oo dhan markaad eegto dadka wax qori kara wax akhri kara waxa weeye boqolkiiba ilaa waxay noqonaysaa 40 way ku dhowdahay boqolkiiba 40 ku riyo laakiin markaad eegto haweenka hablaha waliba xaafadahoodu ay aad iyo saboolka u yihiin boqolkiiba 10 boqolkiiba 12 baa wax akhri kara waxna qori kara halka hawl weyn ayaa inoo tala waxbarashada waa horizontal laakiin ta kale la soo gaaray oo wasiirka waxbarashada uu marxaati ka yahay waxa weeye vertical waxbarashadii quality ya waan iskuuladii baa lagu jiraa waa okay laakiin ta maxay bartaan quality maxay tahay adduunyada ma la tartami karaan waa quality taasi aad bay imaka inooga dambaysaa waxaan ku waan haynaa data arinta waan haynaa aad iyo aad bay u dambaysaa quality-ga sida kor loo soo qaadayo waa laga maarmaan curriculum-ka tight in dib loo soo habeeyo waa important jaamacadahuna inaanay noqon meel maqaaxi oo qofku ilaaho wallahi jaamacadan doonaya inaan furto uu iska furto oo wuxuu doonaa wiibiyo ya waxaas jaamacad ma noqonayso marka in curriculum-kii dib loo soo habeeyo ayaa loo baahan yahay jaamacadahan specialization inay kala yeeshaan waan ka wada hadlay jaamacada waan wada arkay waxay soo wada mid ay wada iibiyaan soo dhammaad ma soconaysa dhulka Mareykan waxa ku yaala ugu yaraan waxa ku yaada ugu yaraato 4,000 oo jaamacadood ba ku yaala base-ka waa isku wada mid laakiin mid walba specialization bay leedahay oo lagu yaqaanade oo la yiraahdo doonaysa inay taa waxa barato halkaas inaad arimahaas ay noo baahannahay in degdeg loo galo waxaan ku talinayaa marka xisbigana aan ku guwaabin doonaa inay noqoto project-keena ay noqoto in la sameeyo board of education board cusub oo dadka jaamacadaha abuurtay waxaasi aanay ku jirin waa inay noqoto independent board oo ah dad yaqaana jaamacadaha sida loo dhiso loo maamulo curriculum-ka loo sameeyo dad caynkaas ya oo u dhaxeeya jaamacad ku xidhnayn board caynkaas oo karti in la sameeyo oo dib markaa u soo dejisa sida loo habeynayo education-ka iyo jaamacadihii waxay la tahay inay noqoto xisbiga howlaha uu ku dagaalgalay laakiin quality wadanka Mareykan haddaad joogto iyo dhulka Yurub haddaad guri iibsanayso amba waxawadaal dhisa saamkan waa inaad soo eegto dhulka marka dambe kharashka ku baxaya maaha marka dambe sida uu loo sameeyay maaha waxaasoo dhan way wanaagsan yihiin marka dambe Mareykanka waxa la yiraahdaa haddaad dhul iibsanayso wax dhisayso location ya halkuu ku yaala guriga hudaalku halkuu ku yaala dukaanku halkuu ku yaala أنا واحد من الله سومالي لأن واحد سوق قابل مركز نقطة أرمها education واحد لسوق قال وقت يقولون لها quality كذا نحن نتاكد نحن
kusoo gabagabeynayaa arrintii siyaasadda dibadda oo afraad oo aniga ay la tahay priority number 4 inay u tahay waddankan xisbiga kulmiyana aan rajaynayo inay ka mid noqoto howlaha maxaan ku leeyahay campaign-ka lagu galayo dawladda la dhisayana ay u noqoto maxaan ku leeyahay markhaati siyaasadda dibaddana laba amuurood baa key u ah oo mas'uuliyaddeedu saaran mid waxa weeye dood cusub oo aan ahayn 25 sanadood doodahaynu wadnay dood ka cusub in la soo hordhigo Soomaaliya dadka ka wakiilka iyadoo adduunyadu markhaati ka tahay dooda cusubna waa inay noqotaa dood cilmiyaysan waa inay noqotaa ya oo iska daa qofka kuugu nacab ee aan waxba kula doonayn qancin karta adeegta qofka waa easy qofka wax kula jecel waa u sanqan oo diiro dhunkan oo khalaas uu ku saxiix laakiin qofka aad doonayso maxaa ku raayay inaad jebiso oo ka adkaato waa qofkan waxba ku ogolay kolka waa inaan keenaa dood cusub Somaliland sida ay u soo hor fadhiisanayso Soomaaliya iyadoo adduunyada markhaati ka tahay waa koob talabaadayna horta la siyaasadda dibadda waxa weeye in adduunyada wadamada waaweyn ee adduunyada dhaqaajiya muftaax adduunyada iyo organizationska amba gobolkan maxaan ku raayay East Africa iyo degmada iyo internationalka ya international organizations iyagana sida loo qancinayo ilaa maanta anu waan la sheekaystay in badan baan la sheekaystay UN kan la sheekaystay AU kan la sheekaystay European Union kan sheekaystay waxa ku oranaya Somaliland oh nice laakiin de shaqada marka la inoo dhigmeel marka they don't take us seriously I'm telling you marka waa inaan keenaa ya dood cilmiyaysan oo muruq leh oo soo joojisa dadka oo hey this is serious dad waa inaan keenaa maxaan ku keeni karnaa bay marka noqonaysa gabagabada madaxweynihii Kennedy intiina da'wad garanaysan intii iskuul gashay wada akhrisatay 1960 ayuu madaxweyne ka noqday xisbiga dimuqraadiga ka soo baxay madaxweyne ummadii Mareykanka iyo Suurtaag baarlamankii labadii guri iyo telefishinkii adduunyada ballan ayuu qaaday wuxuu ballan marka waxa la tartamayaa Soviet Union waxa lagu tartamayaa space hawada ya عدة محاكم هاي حكومتهم تدي أنك exploration كده تط وحوي وأنا الروش كهرية ما كانت روش قوي درين بس يروح وقف لص على يوريكا جرين ودرين ولا قهرية أمريكا وحكوي وحن عاو قبلا قاضية أنا جيت دولتي إنه صلدقي السماينة يا إن طبعا سنضاد وحن كبضنين 10 years ومضى أمريكا كيت دولتي ay qof bini aadama oo Mareykana intay sayruuq saaraan dayaxa ay ku dajiyaan oo dayaxa dul oo ku dego ayaan bal ku qaaday weligeed yaa la taariikhda bini aadamka lagu ma aragtay inta sayruuq qof halka la geeyay never happened before ballankaas qaadanay laakiin ballankaas hadii laga soo baxay waa hawl adoon hore weligeed loo sameeyay waxay u baahan tahay shaqo gooni ah waxa la waxa scientist ee Mareykana ee la yaqaan top class ka miida in soo qaado حول بدن billions ما محاكورة billions إلا كل administration ونأكسن لو سمي أوربا لسمي مركا الله يده هو ناسا وما أنت هو national agency for space يا لسمي وحدن بالس كنا ميدي مريكن كي يقود دي أقونتي دي scientist دي محاكورة الدولة دي وحدن بالجلية ماشي طبعا سنة ضمن بالله كوي سجال سنة 1969 نيل أرمسترونغ وكي كده جديه أنا ولا لما جوجو بي بي سي أنا يروح شقينا وانا ما يسوي سو هذا كلمة واحد مرة مرة يقول نورتين سو هذا كلمة لو واحد أنتوا يستول تاجد ده يحيري small step for man وطلابة يرقف بني آدم يقاضي كرو but a giant step for humankind لكن وطلابة وين وبني آدم وقاضي علمي يسي هكذا وكذا أنا وحنا بالله كبر Somaliland arrintaas siyaasadda dibadda ee aan ahay waxaan doonaynaa in la aqoonsado waa inaynu daar caynkaas galnaa oo niraahna quwadeena oo dhan baan isku geynaynaa waa ka qabsano amba 5 ha noqoto amba 10 ha noqoto amba ka badnaato laakiin hawshaas aan gelin quwadeena oo dhan isku goyn ka dhabayno waxay aan xisbiga anu waxaan ku guubaabin inuu maxaan ku dhahay ballanka qaado oo xisbiyada kale uu kaga duwanaado ballanka qaadaytana kana la keeno sida lagu tagay maxaa lagu tagayaa bay noqonaysaa strategy bay u baahan tahay national strategy maanta ma jiro Somaliland aqoonsi dibadda laga raadiyo waan baadhay
dad wanaagsan way ka shaqeynayaan laakiin national strategy ma jiro safiirka marxatika oo committee-ga maxaan ku raayay ay ku jiraan safiirka halka waa soo degarmay aan soo gaabay national strategy-guna wuxuu leeyahay 5 qodob kow sheekada adiibinaysa qisada adiibinaysa maxay tahay waana cilmiyeysan tahay baaxado badan leedahay soo degaray oo taariikhda ku jirto oo qofka cadowga ee kula aqoonta amba ka aqoon badan aanu jabin karin intuu soo baaro karin taasi ma soconayso soo waa taas horta maxay tahay qisadu what's the cause what's the case sidii court adigoo tagayay oo case soo hordhigay waa kow talabaadi waxa weeye inaad dadka qaadaya sheekadaasi adduunyada gaarsiinayay hadday noqoto maxaan ku lahay dad iska yar wada socdo unta ya iska yar wada socdo unta oo sabarka soo baxay ma soconayso marka dad waxaan qaadi kara miisaankan qaadi kara waa in la helo number 3 halka la geynayo halkee la geeyo la dhulku isku wada mid maahay halkee la geynayo waa in priority leedahay halka imka maanta waxaan ogahay meelo badan bay Soomaaliya waxa lagu leeyahay halkan Soomaaliya safiir bawjo halkan safiir bawjo doorta safiir ma lihin safiirku waa marka lagu aqoonsado adduunka aqoonsa safiir leeyahay laakiin mission bay leedahay missionadaasna badankoodu waa daciif wax ka toocankaasi ma jiro waxa inta la ururiyo strategic maybe 10 meelood oo quwadda adduunyada taalo oo sida loo daloolinayo laga wada and then finally waxa weeye xoolihii lagu geeyay budget waxaan u baahantahay waana Mareykanka sheegay billions xoolo badan waa inay dawladda iyo private sector iyo ummadii Soomaaliland waa isku timaadaa oo waxaan ku halka xoolo la geliyo miisaaniyad loo yeeyo dabeetana waqti aynu qabsano timeline la yiraahdo 6 bilood halka sanad halka 2 sanadood halka timeline lagu xisaabtamo anigu taas halkaas aan ku soo waxaan ku soo xiriyaa hadalkaygii Somaliland wax badan ayaa u qabsoomay khayraad badan baa ku jira dadkayga idinku maanta aad ka mid tihiin ay ugu horeeyaan and I mean this igamaha aniga campaign u sanqay igamaha I really mean this one dersay one arkay wax badan baa u qabsoomay sida walaalkii Muuse uu sheegay iyadoo cid waxba tarin xoolo badan iyo wax badan baa wadankan yaala talent fara badan wadanka way taal dib aan isku caashaqo dib aynu soo samaysan aad baad u mahadsantihiin waliba ree awdal si gooni ayaan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin ya madaxdana aad baan u samaynaya markuu mahadnaqaya Somaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guuleysto wassalaamu calaykum